asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka mar kale soo dhowaada aad iyo aad aa u mahadsantihiin maanta waa sabti waana 8 bisha labaad ee februari sanadka 2026 muuqaalkan waxaa rabaa inaan idinkula wadaago dagaalkii maalmahanba laga baqayay oo maraykanka iyo israa'iil ay u xeydxeedanayeen inay iiraan ku qaadayaan ayaa hadda si toosa u socdo. madaxweyne Trump ayaa arrintaasi xaqiijiyey. iiraan iyaduna dhankeeda waa ay ka jawaabaysaa oo waxay duqeynaysaa saldhigyadii ciidamada maraykanku uu ku lahaa bariga dhexe walow maraykanku uu faarujiyey. israa'iilna sidoo kale duqeyn ayaa ku socota. haddaba madaxweyne Trump muxuu u cugsanayaa weerarkan maraykanku uu ku qaaday dalka iiraan? muxuu yahay baaqa uu u jeedinayo ciidamada kala duwan ee iiraan iyo weliba shacabka dalkaasi iiraan? arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagayaa, balse marka hore soo dhowaada. waxaa hadda si toosa u socdo dagaalkii maalmahanba laga cabsanayay in maraykanka iyo israa'iil ay ku qaadi doonaan dalka iiraan. waxaa lagu waabariistay duqeymo ku socda caasimadda waddanka iiraan ee tehraan, sida sawiradan aad ka arkaysaan. israa'iil waxay sheegtay in weeraro ka hortag ah ay ku qaaday dalka iiraan maadaama ay rabeen inay soo weeraraan. waxaan ognahay maraykanku diyaarado aad u fara badan oo ku dhowaad 20 oo kuwa dagaalka in maalmihii u dambeeyey uu ku daabulayay gudaha waddanka israa'iil, islamarkaana ciidamadiisii joogay bariga dhexe sida qatar iyo baxrayn, kuwait iyo sacuudigaba uu ka qaaday inta badan oo xarumihii ay badneeyeen. hadda waxaa la arkayay saldhigga ciidamada maraykanku uu ku leeyahay baxrayn oo iiraan ay duqaysay. marka madaxweyne Trump oo bartiisa Truth Social soo geliyey muuqaal ku dhowaad 9 daqiiqo ah ayaa waxa uu ka hadlay weerarkan hadda socda iyo sidoo kale in laga yaabo ciidamada maraykanka sidoo kale in dhimasho iyo dhaawacba ay ka soo gaarto. haddaba madaxweyne Trump muxuu u cugsaday weerarkan uu ku qaaday dalka iiraan oo maalmahanba laga cabsi qabay in uu dhici karo? madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in dalka iiraan uu yahay dalka koowaad ee caalamka ee maalgeliya argagixisada, islamarkaana waxa uu sheegay in 10 kun oo qof ay dileen oo xitaa muwaadiniin maraykan ah ay ku jiraan. shacabkoodana sidoo kale mudaharaadkii hadda bil ka hor dhacay in 10 ka mid a shacabkooda ay dileen. waxaana uu sheegay mar kastaba siyaasadda maraykanka khaasatan maamulka isagoo hadda uu madaxda ka yahay in mar kastaba ujeedkiisu ay ahayd in dowladdan argagixisada ah marnaba aysan helin hub nuclear ah. waa ku celinaya ayuu yidhi, maraykanka mar kastaba way ka go'nayd in iiraan ay ka hor istaagto in hub nuclear ah ay hesho. waxaana sidoo kale uu xaqiijiyey in sababta howlgalkii oo midnight hammer oo bishii juun maraykanku uu ku burburiyey goobihii nuclearka sida fordo, asfahan iyo weliba natanz ay ujeedadeedu ahayd in laga hortago iiraan inay hub nuclear ah gebi ahaanba ay yeelato. waxa uu sheegay Trump inay isku dayeen wadahadal. iiraan mar waxay rabtay inay heshiis gaarto, haddana ma rabto, haddana waa ay rabtay, haddana ma rabta ayuu yidhi. marka waxaan u aragnay inaysan diyaar u ahayn in heshiis ay qaadato, dibna ay u bilaabeen in mar kale hubkoodii nuclearka ay samaystaan. marka waxa uu yidhi iiraan marnaba uma ogolaan karno inay hub nuclear hesho, damaceedana waa ay sii wada ayuu yidhi. sidaa darteed waxay isku dayeysay barnaamijkeedii nuclearka inay mar kale dib u bilowdo, weliba gantaalada ridada dheer oo khatar ku ah ayuu yidhi ciidamadeena jooga Yurub iyo sidoo kale gobolka. arrintaasi darteed waxa uu yidhi xilligan kadib uma dul qaadan karno, markaasi ayaan go'aansanay inaan weerarkan ku qaadno. haddaba waa kan madaxweyne Trump oo arrimahaasi ka hadlayay. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordo, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions.
and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. madaxweyne Trump uu xaqiijinayo marka weerarkan Mareykanku uu ku qaaday dalka Iran dagaalkan hadda socda ayaa waxa uu yiri arrimahaas oo idil anagoo ka duulayna sababahaas oo idil waxa uu yiri dawladda Iran ee kaligii taliga ah marnaba uma dul qaadan karno inay hub nuclear ay hesho sidaas darteed waxa uu yiri howlgal military oo hadda socdo ayaan bilownay oo dawladdan dictatorka mayalka adag oo qatar ku ah ayuu yiri ammaanka qaranka ee Mareykanka ayaan ku bilownay sidaas darteed waxaan burburin doonaa ayuu yiri gantaaladooda sidoo kalena meelaha gantaalada ay ku sameystaan gabi ahaanba waa burburin doonaa ciidamadooda cirka ayaan sidoo kale burburin doonaa ayuu yiri waxaan xaqiijin doonaa Iran inaysan mar kale qatar ku ahayn caalamka ayuu yiri madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in laga yaabo ciidamada Mareykan ah in ay ku dhintaan ama ku dhaawacmaan dagaalkan sida dagaaladaba ka dhacda laakiin waxaan xaqiijin doonaa inta awoodeena inaan yareyno qatarta ciidamada Mareykanka ah soo gaari karta ayuu yiri madaxweyne Trump oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties. That often happens in war, but we're doing this not for now, we're doing this for the future, and it is a noble mission. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa uu digniin u diray ciidamada kala duwan ee dalka Iran waxa uu yiri ciidamada kacaanka islaamiga ah Iran kuwa sidoo kale qalabka sida iyo kuwa booliskaba waxaan ugu baaqayaa hubka inay dhigaan xasaanad buuxda ayaan siin doonaa laakiin haddii ay diidaan ayuu yiri dhimasho ayaa diyaar u ah waxa uu sidoo kale baaq u jeediyay shacabka wadanka Iran waxa uu yiri guryihiina ku jira xabadkana dhulka dhiga maxaa yeelay meel kasto bam ayaa lagu tuuri doona marka aan idin nadiifin ayuu yiri wadanka shacabka adinka ayaan gacanta idin gelin doonaa mustaqbalkuna gacantiina ayuu ku jiri doonaa marka waxa uu shacabka ugu baaqay in ay guryahooda ku jiraan oo aysan ka soo bixin sida uu leeyahayna marka aan idin nadiifino wadanka shacabka ayaan gacanta u soo gelin doonaa marka fursadaas ha iska qasaarin ayuu yiri waa kan marka madaxweyne Trump oo arrimahaasi ka hadlay To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight.
Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. iiraan nafsad ahaanteedu way ka jawaab celinaysaa weerarkan israa'iil iyo maraykanku ay ku bilaabeen saldhigyadii sidaan idiin sheegay maraykanku uu ku lahaa bariga dhexe walow inta badan ciidamadiisii uu ka qaatay duqeyn ayay ku wadaa magaalada xayfa ee waddanka israa'iilna sidoo kale waxaa la leeyahay gantaalo ayaa ku hoobanaya iyo weliba caasimada talaabiib marka ilaa hadda khasaare lama sheegin waan arki doonaa waxyaabaha kasoo kordha laakiin caasimada tehraan waxaa la arkayay qiican ka baxaya iyadoo gantaaladuna ay ku hoobanayaan waxyaabaha soo kordha waa idinla soo socodsiin doonaa insha allah aad iyo aad oo mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo